ciidamada walaalaha hiil walaal Djibouti ka tirsan ciidamada Amisom ee jooga Soomaaliya haddana nagu yimid deegaanada Galmudug kuna socdaan ay naga caawiyaan amniga xagga noqoto heshiisiinta iyo shirarka socda iyo xagga la dagaalanka argagixisada inta waxaan rajaynayaa inay caawimaad fiican sidii ay hiiraan uga shaqeeyeen oo kale ay nagala shaqeyn doonaan dilaayno halkan ku soo dhaweynaa boqolkiiba boqol aad u faraxsan maanta halkan ugu yimaada aniga saraakiisha la socota inaan u muujino qalbi wanaag iyo walaaltinimo waxaan meesha ku jirin waxa la yiraahdo laba jecel iyo laba rabo iyo waa la celiyo walaalahan weeye boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaa waxaan u mahad celinayaa taliyaha qaybta kooxda iyo taliyaha guutada shaqada oo si fiican noo soo dhaweeyay degmada Matabaan Xeru oo si fiican noo soo dhaweeyay degmada Matabaan waxaan wararkana markii hore samay waxaan maadno Dhuusamareeb mara badan bay maadeen Xeru si marka loo soo dhaweeyay loo soo dhaweeyay ciidamada kooxda iyo ciidamada Djibouti jooga Iran waas yaqaaniin shaqo fiican ba ka dhaxaysay hore uga dhaxaysay inay ka dhaxaysa oo ka dhaxayn doonta waana ka caawin doonaa wax kasta ay na weydiistaan diyaar ma nahay inaan la dagaalano al-shabaab iyo wixii amni ka soo jeedaba maanta halkan magaalada Dhuusamareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto Amisom oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amisom iyo saraakiil kale wuxuu daba socday isbuuc ka hor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqashaasna waxay sidii u kurgeli lahaayeen sida halkan u imaan lahaayeen ee u qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay sida wada shaqeyn lahayn markay halkan yimaadaan ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxayna Amisom ka shaqeynayaan sida uu qayb qaadan lahaayeen geedi socodka dib u heshiisiinta sidoo kale doorashada Galmudug si loo dhiso maamul oo dhan yihiin dadka reer Galmudug waa markii labaad ay yimaadaan ciidamada Amisom oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amisom waxayna halka u yimaadeen si ay u qayb galaan geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug waxaan rabnaa ciidamada Amisom inay goobjoog ka noqdaan inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer Galmudug u baaqayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ay amni tahay in isku haleyn karo haddii Ilaahay mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisiinta sidoo kale maamul dhisida ama doorashooyinka mar dhow gali doono marka waxaan leenahay waa maasiti